deegaanka qaamqaam oo 20 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada saaran jiinka webiga Juba waana deegaan hodan ku ah beeraha. qaamqaam ayaa leh beero saaran jiinka webiga Juba iyo beeraha aan u dhoweyn webiga oo la tacbo xilliyada ay da'aan roobabka deerta iyo guga. bulshada ku nool deegaanka ayaa intooda badan noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha. deegaanka qaamqaam ayaa ka mid ah goobaha ugu amniga badan deegaanada Jubbaland ee laga xoreeyay maleeshiyaadka Al-Shabaab waxaana deegaanka ka jira isku xirnaan u dhaxaysa ciidamada iyo bulshada deegaanka kuwaas oo juhdi ku bixiyay sugidda amniga. telefishinka dowlad goboleedka Jubbaland oo u kuurgalayo baahiyaha ka jira deegaanka qaamqaam ayaa booqday deegaanka qaamqaam ayaa waxa ka jira baahi dhanka caafimaadka. deegaanka ayaan gabi ahaanba lahayn xarun caafimaad labadii bilood ee la soo dhaafay ilaa 3 haween ah ayaa umul raacay sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. dadka ay la soo dirsaan xaaladaha caafimaad darro ayaa waxaa loo soo qaadaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo ah halka ugu dhow ay ka heli karaan adeeg caafimaad. Cumar Cusmaan Barre oo ka mid ah waxgaradka deegaanka qaamqaam ayaa ka waramay xaaladda caafimaad ee ka jirta deegaanka. xagga caafimaadka waan aad baan uga liidanaa MCH male isbitaal male haweenka markay umulaan Kismaayo loola cararaa kii xanuunsan oo qofkii oo anaga wax ka qaban weyno isna Kismaayo loola cararaa daawad mataalo isbitaal male MCH male xanuunadana hadda waa iska badan yihiin malaariyo iyo hergab iyo hadda ilaahay ku diidanay xanuuno badan baa hadda dad badan oo caruur badan oo waliba caruurta yarka u soo daran waa dad waajifaan. marka hadda waxa uu aad niyada u hayna waxa waa in aan bal meel caafimaad xarun caafimaad in la helo tuuladana dad badan baa ku nool oo boobala marka caafimaad la'aan ma anfacayso. MCH baan u baahanahay iyo daawo. علي فارح إسماعيل قدوميها ديغان كقام oo u waramay Jubbaland TV ayaa sheegay in deegaanka uu aad ugu liito dhanka caafimaadka wuxuuna wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo hay'adaha samafalka ka codsaday in wax laga qabto xaaladda caafimaad darro ee ka jirta deegaanka qaamqaam. waqtiyada u dambeysay oo hadda ugu dhaweyd waxaa jiray islaamo bilcaan umul raacay waqtigooda galay oo ma aynan dhaafeen oo xilliga Ilaahay ugu tala galay marna kama ayna dib dhaceen haddana aanu isleenahay waxa sabab u ahaa dayac caafimaad la'aan in la waayay dhakhtarkii wax ka umulin lahaa kontarooli lahaa inta aan umultaanka la gaarin baaritaanka ku sameyn lahaayo la iska baari lahaayo la ogaan lahaa xagga dhiig yaraanta iyo wixii caqabado jira laga sameyn lahaa waa jiraan